magaaladan waxaan u imi inaan diyaarad ka raaco transit inaan ku maro sababa hadda aanan ku dheeraanayn baa igu kaliftay inaan diyaaradan ka filayay inaan ka qaato Buuhoodle yaa suurtoobi weyday sidaa awgeed magaaladana airport weyn oo aad u fiican baa ku yaal taa inaan ka faa'iideysto yaan meesha u imi magaaladana waqti hore ay ugu dambeysay runtii aad bay u dhisantay aad bay u qurux badan tahay inkastoo aanan waqti badan ba helin aan soo warwareego laakiin intaan arkay yaa qancisay hawl badanna meeshan in laga qabtay maamulka Somaliland muddadii hadda uu meesha joogayna waxaan u maleeyaa magaalooyinka kale qudadooda dariiqo baan soo maray Burco iyo Berbera iyo laakiin dhismaha iyo wali wadada weyn ina Afmadoobe ilaa Ceergaabo lafteeda ina Afmadoobe maraan soo maray la tilmaamay wataa wadadii Ceergaabo lii 4 saacadood baa lagaga imanaya meeshaasna maalmaha marka roobo ku jiraan loo aan jiray marka halka aan ku noqday waxaan u imi transit baan ahay nasiib wanaag ways arag madaxweynaha waa arkay xalaan is aragnay odayaal oo kale oo maamulka iyo baarlamaanka ah waa is aragnay laakiin nin wada hadallo iyo arrimo u socday halkan inaan ku qabsano ma ihi xatimada Somaliland wada hadallo u socday in halkii arrimahaas maraya arrimahaas waxay marayaan Soomaalida waxay tiraa war hal isii iyo hoo hadal badan baa u dhaxeeya annaga iyo Somaliland wada hadal baa noo bilaabay muddo hadda 2 sano ku dhow inaanu wada hadallo oo qolo walba iyadoo danteeda wadata oo danteeda daafacanaysa haddii aanu heshiin karno oo nabad aagan dadku bal inay marsalka dhigaan oo yool laga dhigto wixii haddii la wada hadlo dana badan baa naga dhaxeeya dhibaatooyin badan iyo colaad iyo burbur iyo dhiig badan oo daantaana waa jiraan ilaa kama qarsanayno haddana Soomaalida waxay tiraahdaa waa seeto wixii ay u muuqato inaanu ka wada hadli karno isla ogolaan karno iyana in la huliyo waa fiican tahay Europe ku kaliftay oo Germany iyo France ama Germany iyo Ingiriis yaale isku hal unit baanu noqonaynaa ama dhaqaale ama yoolku u yahay siyaasad xitaa hal state baanu u soconaa halkanna meeshanna waxa yaalana waa aragnaa ama una Khaatumo iyo Somaliland laakiin Soomaaliya ama geeska Afrika oo dhan yaa runtii fursado badan muuqdaan dhibaatooyin badan ay ka taagan yihiin raqba waa ku raggeed wixii uu maanta nool iyo u baahan tahay in ay isaga yimaadaan ka wada hadlaan khayaal iyo waxaan jiray in lagu wada hadlana laga fiican wixii dan loo moodo la ikraha fi diin cidna lama khasbayo taana annagu kulli haddaan Khaatumanahay diyaar baanu u nahay wada hadalladaas laakiin inay waqti qaadanayaan waa in lagu talagalaa wada hadallaan isleenahay hadaba waa la soo afjari karaa arrimo culculus baa meesha yaala ummadahan dadkan waana kala maqnaa colaad bayna ku kala maqnaayeen haddana waxay isu yihiin iyo wax ka dhaxeeya Djibouti baa la tagay Addis Ababa la soo maray Dubai waa lagu kulmay wada hadalladu magaalooyin kala duwan ku qabsoomay kulanka kan xiga halku ku qabsoomiya maxaa gabagabada laga filaya kulanaan hadda heshiis ku nahay oo taariikh oo carifan iyo meesha lagu qabanaya ma ay jirto anigu hadda Nairobi aan u socdaa shir Nairobi lagu qabanayo weeye waxaan u socdaa haddaan Nairobi ka soo noqdana kulli magaaladan waa soo mari doonaa sikadiisana waa ku imi si aanan xitaa cidnaba u sheegin oo maamulka Somaliland private visitkay transitkaygaas saasaan door mooday laakiin madaxweynaha ay saragnay wasiiray saragnay gudoomiye Muuse Biixi saragnay iyo Maxamed Kaahin waxaan jeclahay marka dambe aan soo noqdana haddaan maalin iyo laba waxay doonaysaa ha noqotee in aan isa sii aragno in su'aashan aad weydiinayso goorma la shiri doonaa iyo xagee lagu shiri doonaa waa arrimaha ay tahay inaan ka wada